maanta waxaan ka hadli doonaa neurons. Waan ka hadli doonaa insha Allah anatomy of neurons, types of neurons, function of neurons ayaan ka hadli doonaa haddii Ilaahay idmo. Introduction to neurons. Hordhaca neurons. Neurons also known as nerve cells. Unugyada waxaa loo yaqaan sidoo kale unugyada neerfayaasha loo yaqaano. Send and receive signal from your brain. waxay bixinayaan fariin ama waxay helayaan fariin iyagoo ka helaya marka waxaa waaye maskaxda. While neurons have a lot in common with other types of the cell, kuwa kalena waxay bixinayaan fariimo oo unugyad. They are structural and functional unique way. Waxay leeyihiin marka qaab dhismeed iyo shaqooyin oo muhiim ah. Specialized projection called axon allow neuron to transmit electron and chemical signal to other. waxayna macnaha ishaadi bixinayaan fariin kuwaas isku xiraya marka axonka kaasoo ogolaanaya marka inuu fariin u gudbiyo oo fariin oo central nervous systemska iyo fariin chemicaleed soo gudbinayo. Structure of neurons. qaab dhismeedka neurons. Parts of neurons. qeybaha neuronska cell body oo kooban yahay also known as loo yaqaano soma waa jir unugeedka. The cell body is neurons core waxaa waaye xudunta waxaa waaye neuronska waaye. Axon qeybtan dheer oo usha an axon is a long waa mid dheer waaye. Tail-like structure waa sidii qaab dhismeedka waa sidii dibka camal waaye ama senti camal. Which joins kaasoo marka isku xiriirinaya marka the cell body. Specialized junction waxaa waaye xiriiritaan oo khaas ah loo yaqaano marka loo yaqaano axon helix. Dendrites waxaa waaye are fibrous roots waxaa xididka fibrous that branches kaasoo ka farcama marka out of from the cell body. jir unugeedka kuwa ka baxsan oo ka farcamaya dendrites loo yaqaan ama x loo yaqaano x tension kuwa macnaha balaaranayo. Structure-kii ama neuron anatomy-ska meelahaas u kala yaalaan yaan soo sheegayna hadda oo cell body waa qaybtan oo ku bilaabanayso nucleus-ka leh waa. Dendrites qaybtan farcamayso waayo oo sidii laamo geedaha camal sameynaya kabacdi extension sameynaya oo axon sidoo kale sidoo waxyaabaha daboolaya oo kor waxaa ka daboolaya maxaa waaye marka neuronal sidoo kale gudaha oo iyaga neuronal wax ku soo xigo labada oo gudka waxaa melanin sheets oo ka buuxdo waxa duf. sidoo kale waxa waaye dhibicda yaryarista oo madowda ah waxaa loo yaqaanaa swan cell loo yaqaano oo kabacdina waxaa waaye dhamaadka qaybta nerve endings jira sin oo ama terminal endings loo yaqaano. qaybtaas dhanka waxaa nervous central nervous systemka xigta. waxaa kaloo jira mid walba marka waxaa waaye dhamaad swan cell-kii markuu dhamaad mid walba oo axon kasta oo dhamaanaya markuu dhamaado waxyaabaha mid walba markuu dhamaado qaybta dhamaadkan waxaa loo yaqaana iyagana neutron field loo yaqaana. labada meesha laba neuronska waxaa isku xiraya waxaa loo yaqaana synapse ayaa loo yaqaana conjunction waaye oo waxaa waaye neuron to neuron isku xiraya laba neurons isku xiraya. Further classified according to human dendrites. inta ku dhagan oo dendriteska anoo fiirinayno waxa si kala qaybinaynaa marka structure of the classified of neurons basic upon the number of the processes that extend out from the cell body. inta ku dhagan waxa waa jir unugeedka tira ahaan oo dendriteska anoo fiirinayno our three major groups arise from this classified. waxa qaybin saddex waaweyn ayuu kala qaybinaynaa oo kala multipolar, bipolar, unipolar neurons. Multipolar neurons ka waxaan ku qeexaynaa marka are defined as having three or more processes that extend out from cell body. inta macnaheedu ku dhagan jir unugeedka ka baxsan inta ku dhagan oo dendriteska ku dhagan oo macnaheedu laba iyo wixii ka badan ku dhagan waxaan ku qeexaynaa marka multipolar.
Dendritiska. The dendrites of the cell body make contact with the neighboring neurons in the central nervous system. Dendritiska wuxuu kasoo bilaabanaya marjir unugeedka kasoo bilaabanaya wuxuu xiriir la sameynaya marka central nervous systemska oo xiriir la sameynaya while halka kale macnaha the terminal dendrites at the end of the axon make contact with the effector organism. halka kale meesha qaybta dhamaadka ayuu ku yeelaa oo macnaha central nervous system kuwaasoo marka isin xiriir la sameynaya effector organism wuxuu meena fariin geynaya marka xubnaha kale several neurons links up to the transmit impulse from the sensory organ to the central nervous system and also from the central nervous system to the effector organism. kuwa badan ayaa jira marka neuronska oo meena fariimo gudbinayo oo fariimaha kasoo qaadaya marka xubnaha kasoo qaadaya oo dareemayaasha oo geynaya marka central nervous system kuwa marka waxa waaye central nervous systemska ay kasoo qaadayaan to marka waxay geynayaan marka xubnaha dareemayaasha ay geynayaan. Types of neurons qeybaha oo neuronska classified of neurons according to direction and their function waxa uu kala qaybinaya neurons kana oo fiirinayno jihada ay u socdaan iyo shaqooyinkooda. Sensory neurons waxa uu naqaanaa afferent, motor neurons waa afferent oo naqaana, interneurons waxa waaye both macna waxaan ka wadnaa afferent iyo afferent labadaba isku yahay. marka waxa markii wuxuu isku xiraya marka sensory neurons iyo motor isku xiraya interneuronska markii la isku xiraa marka waxa uu naqaan marka synapses uu naqaan marka synapseska marka waxa waaye wuxuu noqonayaa marka perisynapse iyo postsynapse. Perisynapse waxa waaye stimulation arinta koowaad waaye ka bacdan wuxuu ku dhigayaa marka postsynapse oo receptor ogolaanshaha markaas waxa dhacay marka excitatory or amse inhibitor ayaa dhacayo oo macnaha isha gudbin fariin ama kareewid ama macnaha xakameyn fariimeed ay noqonaysaa. inta marka aan ku jirno marka isku xiriirintaanka waxay noqon kartaa marka xiriiritaan u dhaxeeya marka neurons iyo skeletal muscle u dhaxeeya oo loo yaqaan marka neuromuscular neurons oo naqana. sidoo kale xiriiritaan kale oo sameynaya marka chemical messenger sameynayo oo dhacaano oo kala gudbinayo oo loo yaqaan marka neurotransmitter ayaa u naqana. xiriiritaan kala jirsan u dhaxeeyo neuron and smooth muscle or amse glandska oo loo yaqaan neuroeffector. marka shaqooyinka saddexdooda ay kala shaqooyinka saddexda neuronska aan kormarayna sensory neurons. This nerve cells links the sensory organs such as ear, eyes, skin, nose and tongue with the central nervous systems. macnaha wuxuu isku xirayaa neerfayaasha oo xubnaha dareemayaasha sida waa dhagihii, hindhihii iyo maqaarkii iyo sankii iyo sankii iyo carabkii kuwaasoo marka geynaya marka central nervous system nidaamka neerfayaasha dhexe. Its cell body is situated off the axon and outside the central nervous system. waxaanu ka baxsan marka central nervous systems ka ku baxsan yahay ku yaala marka jirka ku yaala. Its receptor uu leeyahay ogolaansho uu leeyahay. Dendrites are located in the sensory organs ku yaala while the terminal dendrites are located in the central nervous system ku yaala qaybta central nervous system nidaamka neerfayaasha dhexe ayuu ku yaala terminal dendrites qaybta dhamaad. This function is to transmit nerve impulses from the sensory organs to the central nervous system. wuxuu gudbinayaa marka fariin oo kasoo bilaabmaysa xubnaha dareemayaasha oo geynaya marka central nervous system. motor neurons kan isna shaqadiisa oo qabanaya marka waxa waaye this nerve cell links the central nervous system with the effectors such as muscle fiber and glands. wuxuu isku xirayaa marka isagana central nervous system soo geynaya muscle fibers oo geynaya. This cell body is located at the end of the axon with the central nervous. wuxuu ku yaalaa qaybtan central nervous system oo dhamaadka ayuu ku yaalaan marka cell body-ga qaybta dhamaadka central nervous system. It is a matter independent terminal at the muscle or glands. wuxuuna marka hawaaye materkan oo qaybta dhamaadka ayuu gudbinaya fariimaha oo macnaha transmit nerve impulses from the central nervous system to the effector ayuu marka fariintu waxay kasoo bilaabanaysaa central nervous system kasoo bilaabanaysaa tuu marka waxaa la geenayaa marka
effector. Okay, relay neurons qaybtan kale oo relay neurons la this neurons links wuxuu isku xiraa marka sensory nerves with the motor neurons isku xiraa through small gaps oo meelaha gaabka release-ka oo amase neurojunctionka oo isku xiraya call loo yaqaan synapse. It is therefore bipolar or multipolar noqon karaa. Wuxuu noqonayaa marka laba ama wixii ka badan noqonaya oo dendrites ama isku xiritaan ah. Entire neurons dhamaan neurons-kana islikiit waxay ku yeelan with central nervous system ku yeelan qaybta nidaamka neerfayaasha dhexe. They are non-myelinated man lahan myelinated ka. Main function of the relay neurons is to relay nerve impulses between sensory and motor neurons. Relay neurons shaqada uu qabanayo marka wuxuu isku xirayaa marka oo ama gudbinaya fariin oo gudbinaya waxay tahay ama isku xiraya sensory neurons iyo motor neurons ka ayuu isku xiraya ama small gaps-ka u dhaxeeya ayuu u dhameystiraya waana isku xiraya macnaha conjunction sameynaya synapse. aad iyo aad u mahadsantihiin dhageysigiina next lesson.